kasta joogtaanba waa idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta laanta af soomaaliga ee v o a muddooyinkii u dambeeyey waxaa jaamacadaha somalilan ka soo baxayay boqolaal dhallinyaro ah oo ka qalin jebinayay qaybaha kala duwan ee ay jaamacadahaasi bixiyaan sidoo kale waxaa taasi barbar socota kororhka xarumaha lagu barto tacliinta sare kuwaasoo qaarkood laga leeyahay dalalka jaarka amaba kuwa dhaca wadamada geeska afrika oo ay hore dhallinyaradan amaba dad kala duwan socdaal ugu tegi jireen si ay waxbarasho uga helaan magaalada boorama oo ay ku yaalaan jaamacado doora ayaa waxaa dhowaan laga yegleelay xarun cusub oo laga leeyahay dalka suudaan wariyaha v o eda ee boorama haashim sheekh cumar good ayaa fursadaha waxbarasho ee ku duugan xaruntan ka waraystay asad muuse kibaar oo ka mid a barayaasha jaamacaddan muddooyinkan waxaa ku soo kordhay magaalooyinka waaweyn ee somalilan jaamacadaha laga leeyahay dalalka geeska afrika oo ka furanaya laamo magaalooyinkaasi si dhallinyaradu u helaan waxbarashada digriiga labaad iyo saddexaad ee master iyo PhD jaamacadaha waxaa ka mid a qaar laga leeyahay dalka qaar oo aan weydiiyey waxyaabaha ay soo kordhinayaan jaamacadahani bismillahi raxmaani raxiim anigoo ah gudoomiyaha jaamacadda albutana university oo ah jaamacad suudaaniya oo jaamacad weyn oo dalka suudaan ku taala oo weliba xukuumadda suudaan ay leedahay waxa weeye jaamacaddani waxay xubin ka tahay ururka jaamacadaha carabta ayay xubin ka tahay majliskooga waxay kaloo xubin ka tahay ururka jaamacadaha afrika waa jaamacad weyn marka faa'iido weyn oo u soo kordhay way somalilan oo iminka ayaan furnay xafiisyada hargeysa iyo boorama burcana dhowaan ayaan rajaynaynaa inaanu furno insha allah jaamacadda butano ma baahi loo qabo darteed ayaa keentay in halkan laga furo aad ba baahi badan baa loo qabaa weliba high educationka markay noqoto waddankeena de inta badan digriyada iyo dibloomiyada waa la helaa oo waa la bixiyaa jaamacadaha way wada bixiyaan tani laakiin waxay dheertahay waa jaamacaddii u horreysay ee iyadu bixisa masterta iyo PhD-ga bixisa marka baahi weyn bay dhallinyartu u qabaan waxaan rajaynaynaa inay aqoon badanna kusoo kordhin doonto tayale dee shaqa abuurisna ay insha allahu aqoontooda markay kobocdo ay waddanku maalgelin fara badan iyo insha allah qof kastiba uu horumarka uu qayb ka qaadan doono insha allah saasaan rajaynaya dhallinyarada imminka markaa jaamacaddan dhallinyarada rabta inay galaan maxaa shuruuda ee aad ku xidhaysaan shuruudaha lagu xidhaya waxaa ka mid a mastertoo kale shuruudda koowaad waxa weeye qofka inuu digri haysto oo uu ka soo baxay jaamacad uu ka soo baxay shardiga labaad waxa weeye markaa inuu digri haysta u muhiima kulley wuxuu keenayaa shuruud kalena way jirtaayoo 6 sawir baynu ka qaadnaa iyo shahaadadiisii originalka ahayd iyo koobi shahaadada sawira ayaanu ka qaadnaa form baynu ka buuxbuuxinaa marka suudaan baynu u dirnaa halkaasaa laga soo register garaynayaa oo ID kaarkiisa looga soo dirayaa markaa dabadeed waxa weeyaan bugaagtii iyo macallimiintii professoradii halkaasay ka imanayaan marka inagu waxaan nahay jaamacadda sidaan odhan karo keliya ee geeska afrika ee iyadu go'aan ku gaadhay in ardayganayo uu master ugu yaraan wax u dhigo ama masterta kuwa dhigaya ay noqdaan macallimiin PhD-ya oo professorro waaweyn ah marka xagga tayada waxaan rajaynaynaa wax badan ku soo kordhin doona insha allah ayaan rajaynaynaa aqoonta laga baran doono ee masterka iyo PhD-ga ee jaamacaddan ay bixin doonto maxaa ka mid ah kulley aad bay u fara badan yihiin ilaa 30 faculty way gaarayaan laakiin waxa ugu muhiimsan islamic study ama markaa waxaan la yidhaahdaa daraasaad islaamiya oo af carabi ku bixi doona waxaa ka mid ah shareecada islaamka iyo lowga oo iyadana carabi ku bixi doonta waxaa jirta master iyo PhD lowga oo international law English ku bixi doonta usulul fiqh oo af carabi ku bixi doona iyo luqada carabiga iyo maadooyinka kale ee juqraafiga iyo historyga iyo maatista waxaa kaloo dheer master MBA ah waxaa kaloo iyaduna jiri doonta luqadda Englishka oo iyaduna master iyo PhD marka labadaba leh waxaa kaloo markaa jirta political science and international relations iyo master health and public health iyo journalism oo ah saxaafadda oo iyaduna master iyo PhD markaa ay jaamacaddu bixin doontaa waxa dheer veterinary oo kale ma garanaysa oo iyaduna dhakhtarka xoolaha oo loo baahan yahay waddanku baahi badan u qabo waxyaabahaas markaa iyo dhowr wax kale oo fara badan oo imika aan halkan ku xusi karin ayay bixinaysaa cilmiga aad ka warramayso ee kala duwan waxaa jira baahiyaad badan oo ay jaamacaddu u baahan tahay waxyaabaha loo baahan yahay ayaa daboolaya kulley baahiyaha waxa ballan qaaday jaamacadda xarunta weyn ee jaamacadda Suudaan
iyaga ayaa hadday bugaag tahay haddii wixii wax lagu baranayay hadday macallimiin tahay iyaga wixii tacliin ku saabsan oo dhan iyaga mas'uuliyaddeeda qaaday inagu laakiin ka farsamo ahaan unbaynu waxaynu nahay maamul farsamo oo ardaydu qorno oon xaggaa u dirno oo macallimiintii dalabno macallimiintu yimaadaan bugaagtii wixii dalabno marka iyaga ayaa howlahaas oo dhan insha Allah baahiyaas ballan qaaday waana fursad runtii inoo soo kordhay weysaan rajaynayo oo dhalinyarteenu ay ka faa'iideysan doonaan haddii alla yiraahdo fiida ay dhalinyartu wax ku baran doonto intii ay jaamacaddu ugu tala gashay inay ka qaado wallahi waa kulley jaamacadaha localka ee masterta bixinaga ka jaban fiida aad bay u jaban tahay oo waxaan ugu tala galnay yani faculty-yadan imika aan sheegay marka laga reebo ma garanaysaa health service iyo public health qaybta caafimaadka iyo marka laga reebo inta kale oo dhan waa ka jabannahay waliba taanaftigeedanu ka jabannahay laakiin qiimaha aad buu u naazilan yahay waxa laga yaabaa qofkii inuu semesterkii $400 ku dhigto oo marka waxa way $1600 ayay noqon doontaa oo lacag aad u jaban ardayga dadaalayay waxay ku soo hagaagaysaa bishii $100 baa iskaga bixin karaa fiida marka waana master oo aqoontiisa wax badan bay ku kordhinaysaa insha Allah waxaan rajaynayaa in laga faa'iideysto arrinta iyada aad u mahadsan Haashim Sheekh Cumar Good oo wareysanayay Asad Muuse Kibaar oo kamid ah barayaasha jaamacad ku taal magaalada Laanta Afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan